السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa anigoo ah Macalin Shariif videogan waxaan uga hadlayaa maxay sameyn karaan ardayda ku dhacda GCSE-ga maxaa u furan jaamacad sidee ku aadi karaan waalidka maxaa la gudboon oo uu sameyn karaa marka hore ha iloobin inaad subscribe tiraahdo lana wadaagto walaalaha kale si ay iyaguna uga faa'iideystaan commentigana ha ka baqiil in ka badan 30% caruur ah ayaa ku dhaca imtixaanaadka GCSE-ga ee wadankan Ingiriiska sanad kasta caruurtan qaarkood guul daradan way ka soo kabsadaan waxayna noqdaan kuwo wax qabsada oo waxbarashadooda hore u sii wata halka qaarka kale uu rajabeel ku dhaco waxbarashadana ay iskaga tagaan hami wax qabsina warkiis badaa sababta ugu weyn ay taas u dhacdo waa qaabka waalidka uu la dhaqmo canuga natiijadii imtixaanka ka bacdi waalidiinta qaarkood marka ay ogaadaan in canugoodii imtixaanka GCSE-ga uu ku dhacay waxay bilaabaan inay ku yiraahdaan canuga doqon baa tahay damiin ayaa tahay facaaga ma gaari kartid hebel ayaa ka fiican iyo wixii la mid ah dhamaantood waa oraah u saameynaysa canuga maskaxiyan waana tan midda ku ridda caruurta rajabeelka iyo in ay yiraahdaan waxbarasho kuma fiicni GCSE ma sameyn karo awood uma lihi waxba ma aqaano iyo wixii la mid ah waalid marka hore isweydii adiga hadaad cishoon tahay canugaaga oo ah midka imtixaanka ku dhacay sidoo dareemi karaa sidoo kale inkastoo aad ciil dareemayso haddana wax kastoo tiraahdo waxba ka bedeli mayso natiijada imtixaanka canugaaga sidaa darteed waxa aad leedahay ha ahaadaan wax rajo cusub gelinaya canugaaga ogow guul kastoo la gaaro guul darro ayaa ka horeysay waana taas casharka uu ka baranayo canugaaga imtixaankiisan wuxuu soo noqonayaa asagoo caaboon doonaya inuu guuleysto wuuna guuleysanayaa macallimiinta waqti dheer ayay ku qaadataa inay baraan caruurta guul darrada oo waxayba ka mid tahay casharada ay dhigayaan haddaba maxaa la gudboon waalidka oo uu sameyn karaa natiijada imtixaanka dabadeed la hadal macallimiinta canugaaga oo weydii waxyaabaha u furan canugaaga abiil ka qaata natiijada imtixaanka haddii canugaaga ay uga dhiman yihiin buundooyin yar gareedka uu doonayo weydiiso iskoolka in imtixaanka canugaaga dib loo eego lana saxo mar kale khaasatan tani waa muhiim haddii canugaagu fartiisu ay tahay mid aan la akhri karin waxaad kaloo weydiisan kartaa in canugaagu mar kale imtixaanka fariisto canugaaga haddii uu ku dhacay imtixaankiisa GCSE-ga khaasatan maadada Ingiriiska iyo maadada xisaabta wuxuu dalban karaa BTEC level 1 asagoo sameynaya koorsada BTEC-ga ayuu ku soo celinayaa maadada Ingiriiska iyo maadada xisaabta 3 sano ayay ku qaadanaysaa inuu u gudbo jaamacadda sanadka koobaad wuxuu sameynayaa BTEC level 1 iyo maadada xisaabta iyo midda Ingiriiska sanadka labaad wuxuu sameynayaa level 2 sanadka saddexaadna wuxuu sameynayaa level 3 markaas ayuu dalbanayaa jaamacaddiisa canugaaga waxa uu uga duwan yahay ardayda kale waa 1 sano oo dheeraad ah oo uu ku soo celinayo maadada xisaabta iyo midda Ingiriiska badanaa dadku waxay u haystaan BTEC-gu inay tahay koorso loogu talagalay caruurta waxbarashadooda ay liidato taas oo ah fikrad khaldan oo aan waxba ka jirin in ka badan 1 milyan oo caruur ah ayaa samaysa BTEC sanad kasta 25% ardayda aada jaamacadaha waxay haystaan BTEC dhammaan jaamacadaha wadankan Ingiriiska way aqbalaan BTEC-ga khaasatan jaamacadaha ugu sarreeya liiska horyaalka jaamacadaha ee wadankan Ingiriiska ee loo yaqaano Russell Group Universities jaamacaddan waa Oxford University waa jaamacadaha ugu sarreeya wadankan Ingiriiska halkan waxaa uga jeedaa qualification-ka lagaga baahan yahay ardayga doonaya inuu wax ka barto jaamacaddan way aqbashaa BTEC-ga oo halkan ay ku qoran tahay sidoo kale jaamacaddan waa King's College waxay ku jirtaa 10 jaamacadood oo ugu sarreysa wadankan Ingiriiska halkan waxaad uga jeedaa qualification-ka lagaga baahan yahay ardayga doonaya inuu wax ka barto jaamacaddan
oo jaamacaddan ayada laftirkeeda way aqbashaa BTech-ga oo halkaas ayay kaaga muuqataa. jaamacaddanna waa Edinburgh University. Edinburgh University ayada laftirkeedu way qaadataa BTech-ga oo waatan halkaa kaaga muuqata. canugaaga fursado badan ayuu haystaa hadduu sameeyo BTech-ga oo waxaa laga yaabaa inuu ka wanaagsanaado ardayda kale ee samaysay A-level-ka. koorsooyinka BTech-ga ah ee uu canugaagu samayn karo way fara badan yihiin. waxaa ka mid ah software development, computer science, engineering, construction, art and design, business, child care, applied science, health and social care, psychology, agriculture, creative digital media. Collegekan waa Lambeth College. waxaan oo koorsooyin ah ayaa ku jira. dhammaantood canugaaga wuu samayn karaa. hoos ayaan u dhaadhacayaa. waxaan taabanayaa science. hoos ayaan u dhaadhacayaa haddana. waxaan taabanayaa extended diploma in dental technology. koorsadan waa dental technology. hoos ayaan u dhaadhacayaa haddana. waxaan eegayaa waxa looga baahan yahay canuga iyo waxa uu samayn karo marka uu dhammeeyo koorsadan. canugaaga waxaa looga baahan yahay in uu ka haysto grade-ka 3 maadooyinka xisaabta iyo ingiriiska. canugaaga koorsadan asagoo sameynaya ayuu ku soo celinayaa ingiriiska iyo xisaabta. canugaaga koorsadan marka uu dhammeeyo wuxuu noqonayaa dental technician. waxaana loo rajistareynayaa xirfadiisa. horay ayuu shaqo ka bilaabi karaa oo uma baahna tababar kale. haddii uu doonana wuxuu samayn karaa bachelor degree oo dantiistanimo ah. jaamacadduu doonana wuu aadi karaa 3 sano ka bacdi. waalid, canugaaga fursado badan ayuu haystaa ee dhiirigeli si uu u sii wato waxbarashadiisa. ogow, canugaaga marka uu dhammeeyo dugsiga sare wuxuu haystaa 2 sano ee waxbarashadu lacag la-aan u tahay. 2 sano ka bacdi waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso ugu yaraan 3,000 oo pound koorso kasta oo canugaaga u dalbado. sidaa darteed ha u ogolaan canugaaga in ay ka khasaarto 2 sannadood oo ay waxbarashadu lacag la-aanta u tahay. fadlan subscribe channelkan si aad u hesho video kasta oo aan soo gelino, lana wadaag walaalaha kale si ay iyaguna uga faa'iidaystaan.